ONLF ayaa ku eedeeyay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya inay fashiliyeen kulan laga wada hadlay in madaxda ururka iyo xubno ka socda dowladda ay ku yeeshaan magaalada Nairobi. Gudoomiyaha ururka Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Maadey ayaa BBC-da u sheegay in madaxda dowlad deegaanka ay jigjiga kulan kula yeesheen xubno uu sheegay in ay ururka hore uga baxeen isla markaana ay arintaas u arkaan kala qaybin. Maadey ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyay heshiiskii ay la galeen dowladda dhexe ee Itoobiya oo uu sheegay in ay hal qodob oo kaliya tahay. Tafaatiraha laanta Soomaaliga ee BBC-da Muxiidiin Roble ayuu gudoomiyuhu u waramay. horta muddo badan 6 sanaan wadanka joognay wada hadal gudaha muddo badan baan wadnay marar badan baan siyaabo kala duwan u kulannay wada hadalnay laakiin waxba way ka socon waayeen marka bishii September anu waan ka baxay jigjiga London baan aaday guud ahaan anoo dareensan maaragtay in heshiiskii guud ahaan Itoobiya la galnay iyo wixii gaar anaga noo ahaba lagu ciyaarayo bishii December markay ahayd 17keedii waxaa lan igu yimid wafdi ka socda dowladda Soomaalida oo hogaaminayay nin wasiir ku xigeen markaas ahaa haddana wasiir oo leeyahay Umar Faaruq waxa la socday nin kale asagana labadana dhinacba muxuu ganacsada oo dhexdhexaad ahaa iyo hay'adda CR oo heshiiskeeni ilaa 2012 dowladda Itoobiya ka shaqeynaysa sidii la suukan dhaweyn lahaa way yimaadeen aad baan wada hadalnay waxay yiraahdeen waxaan ognahay inaad maaragtay aad ka xuntiin sidaan maaragtay heshiiska gudaheena xaaladaha guud noo aragtaan waxaan sanaynaa inaan wada hadal rasmi ah galno oo official ku hore ka duwan marka mar hadii wada hadal lagu baaqo wanaagna adoonaysan in odayana tahay ma imaanay ma dhigi kartid wada hadalka ma dhacay hal shuruud bas aan ku xirnaa waxaan niri si ay u noqoto wada hadalkaas mid miro dhala saddex wafdi labada dhinac ka socda ay isugu yimaadaan Nairobi sidii bay aqbaleen anigu waxaan halkan bishii muxuu ahaa Febraayo bilowgadii muddan sugayay oo ballantu waxay in bisha 24keeda la isu yimaado oo 25 wada hadal ku bilowdo nagu wafdi baan shakilnay gudaha ka yimid oo guddoonka ku xigeenka ururka ee rasmiga ah ee sharciyan anagu aan aqoonsanahay iyo laba xubnood oo kale ay la socdeen oo halkan yimaadeen maalin bay ka soo horeeyeen waxaan filaynay in wafdi kale yimaado maalinka koowaad dib ugu dhaceen maalinka labaad waxa la yiri xubinkii dhexdhexaadka ahaa iyo hal wasiirkii noo yimid ahaa yaa soo degay wasiir kale waxaana lagu yiri arrimo farsamo ya airportka uu soo bixi waayay sidii baan ku joognay maalinkii dambe waan sugnay maalinkii labaad hadana waan weynay markii dambe waxa cadaatay oo la yaab noqotay meesha ka sugaynay in wafdiga uu soo dhameystir wada halkan bilowno shir baa laga qaban qaabiyay muxuu ahaa jigjiga xubna anaga naga falaagoobay oo u galay BB oo muxuu ahaa wasiir ah oo kuwii baa shir loo qabtay marka macnaheedu meesha ka filayna wanaagii wada hadal baa sameysmay already macnaha in la dacfaruro dabarjabina lagu sameeyay waxa aad filaneyseen inaad ka wada hadashaan idin qorsheysna maxay ahayd wallahi shan qodob baa asal u ahaa koow wuxuu ahaa maadaama Itoobiya guud ahaan ay dhibaato ka taagan tahay ummadda Soomaaliyeed in la mideeyo oo dadku ay isku ra'yi noqdaan oo gacanta is qabsadaan oo Itoobiya haday ama isbedel ka yimaado ama sii joogtaba wixii danta ummadda Soomaaliyeed laga wada shaqeeyo midda taas waa midda labaadna wuxuu ahaa dagaal baan galnay dib weyn baa dagaalka ummadda ka soo gaaray marka anyway macnaha dadka inta dhibki dhacay dad badan baa ku baaba'ay laakiin dagaalkii u dambeeyay 23 sano socday dad baa ku guryo beelay dad baa ku xoolo beelay meesha dagaal ka dhaco shacabka dhulka joogay baa la ciqaabay dadkii decommissionka lagu sameeyay ciidanka ahaa ayagoon u baahnayn integration lagu sameeyay lama waxaad sheegaysid badi waxay u badan yihiin wixii ku heshiisay Itoobiya 2000 marka in dib looga wada hadlo qodobkaas wixii aan ku heshiinay inay qayb bay ku leeyihiin ayagu kaliya dowladda kore maaha ayagu ka dowladda deegaanahan in gacan naga siiyaan oo iskaashano si qodobka kalena wuxuu ahaa wadankeen waxa weyn marginalization baa lagu sameeyay xagga ganacsi xagga dhaqaale xagga siyaasadeed marka inaan arintaa iyadana la iska kaashado si waxa Itoobiya naga jira inaan u wada dagaalano xaq lagu heli lahaa qodob kalena wuxuu ahaa sharciga Itoobiya anagu waxaan u halgamaynay ay ka tashi iyo inaan xaqeena helno ay ka tashi heerar badan buu maraa marka hore ismaamul uu ka bilowdaa ilaa marka dambe cod laga qaado ama inaad dowladda ka mid noqoto aad ka tagto aad go'sato maamulka Soomaalidu marba maamul karo aan xaq u lahayn qoomiyad kale aynu magacaabo keeno ku eriyo taamar lafteeda in maaragtay difaac laga wada galo la iska kaashado khayraadka dalkeena shidaal buu leeyahay macdan buu leeyahay xoolo badan buu leeyahay kuwaana qodobada waxa kamid ah arintaasna inaan ka wada hadalno way gudoomiyaday arrimaha saad sheegtay hore waxa uga heshiiseen dowladda dhexe Itoobiya waxa ugu baahateen markaan dowladda deegaanka inay kala hadashaan dowladda deegaanka hadda waxay haysaa siyaasadda waddanka ay gacanta ku haysaa oo si ku qaadatayba dhaqaalihii iyo ciidankii amniga ay gacanta ku haysaa haddii aan iskaashano oo aan isku fikirnahay oo aan midaysanahay awoodayada aan Itoobiya kula challenge garan karo kula gorgortami karno
sida qowmiyadaha kale marka inaan Soomaali ahaan mucaarad iyo muxaafid ba intaan gacantaas qabsano aan challenge garayno marka kaligoodna wax ma qaban karaan kaligeena inaan wax qaban karin barnaamijka marka in la iska kaashado qaran Soomaaliyeed wax xaqiisa dhaxsanayaan noqon 7 sano kadib marka waxa soo saarteen war saxaafadeed aad ku leediin heshiiskii Ethiopia la gaasheen inuu buray oo idinku ku eedeynay dawladda Ethiopia iyadu burisay bal waxa buray aad ku heshiiseen oo filanayseen aan dhaqan gelin maxay yihiin heshiisku wuxuu ahaa heshiis qabiic ah heshiiskana dawladda Ethiopia la galnay marka saddex qodob buu ahaa kow in xabadda la joojiyo labada dhinac laba wuxuu ahaa oo la inay si nabadgelyo ku halganto oo si xor ah siyaasadda madax bannaan tahay hadii dawladda Ethiopia dastuurkeeda ay fulinayso marka hadii ay hirgelinayso annaguna in xabadda joojinayno si nabadgelyo ku halgamayno qodobka labaad buu ahaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa in wixii dagaalkan keenay oo socday qarniga in laga wada hadlo arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha arrimaha muxuu ahaa wax walba ay ka mid tahay ka tashiga mustaqbalka ummadan waxa soo idin in gudiye la saaro internal laga wada hadlo saddex qodob baa salo ahaa intiiba waxa laga filay xabad joojinta kaliya